wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu helinayo wasiirka dekedaha ee Soomaaliya ayaa si wada jir ah xariga ugu jiray xarun ay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka hirgelisay dekeda weyn ee magaalada Muqdisho. Dhismahan maanta xariga laga jaray ayaa isugu jira xarun ay leedahay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo shaybaarka xoolaha ee dekeda magaalada Muqdisho. Mashruuca lagu dhisay dhismahan ayaa waxaa maalgeliyay Bangiga Horumarinta Afrika waxaana fuliyay hay'adda Save the Children. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay madaxa hay'adda Save the Children ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Xasan. waxaan ku faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galo munaasabadan qiimaha badan ee furitaanka xaruntan caafimaad ee xanaanada xoolaha loogu talagalay baaritaanka iyo daweynta xoolaha loogu talagalay. waa arrin aad muhiim u ah oo qayb weyn aan filayna inay ka qaadan doonto dhaqaalaha dalka maadaama xooluhu ay lafdhabar u yihiin dhaqaalaha dalka. daaweyntoodii iyo jeegarayntoodii iyo caafimaadkii xoolaha waa arrin muhiim ah oo dhaqaalahana ka qaadan doonta qayb weyn. waxaan markaa ku faraxsannahay maalintii u horreysay halkan la dhagax dhigay meel cidla iska ahayd hadda iyadoo dhaqan gashay inaan idinkala soo qayb galno wasiiradan aan kala soo qayb galo. waxaan aad ugu boorinayaa wasaaradda iyo dadka kale ee dhalinyarada ka shaqaysa meeshan muxuu ahay faraha ku han doonta in la ilaaliyo xaruntaas oo waxtarkeeda si fiican looga faa'iideysto muddo dheerna ay jiri doonto insha Allah. wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiir ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku bogaadiyay xarunta ay ka hirgeliyeen dekeda weyn ee magaalada Muqdisho. horumarka ay gaadhay waa horumar dalkooda ma wada gaadhay annaguna kula daaranaa maadaama dekedii aanu dhulka anagu siinay inkasta iyagoo dhistaan waa kula daaranaynaa muxuu ahaa xafladda wasiirka aad iyo aad ugu mahadnaqaya muxuu ahaa inuu nagu casubay inaan kala soo qayb galno. waxa hadda la dhisay oo inta iminka dhisan oo laabku ugu mudan yahay iyo shahaado bixintu waxa weeye waa wax lagu faano dalkuna tartiib ayuu u soo noolaanaya una soo kacaya. waxaan rajaynaynaa qaybaha hadhay inta aanu dhulka ka banaynayno in markaa si ay u kooxdo u ballaadho muxuu ahaa kaashi dekeda xamar muddo fara badan xoolo kama dhoofi jirin laakiin waxaan rajaynaa from now onwards hadda wixii laga bilaabmo inay xoolo ka dhoofaan. wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa sheegay in xarumahan la dhisay ay wax weyn ka tari doonaan baahida xagga dhoofka ee xoolaha. xafiisyadan quruxda badan oo saaka aan xariga ka jirnay waxay kaabi doonaan guud ahaan horumarka dalka Soomaaliya ee gaar ahaan soo kabashadii markii dalka uu burburay oo dhibaato ay ku dhacday sektarkan xanaanada xoolaha. xaruntan waxay wax badan ka tari doontaa shaybaarka caafimaadka xoolaha oo haddaba shaqo badan laga wado oo bilihii ugu dambeeyey ama sanadkanba si xoog leh ay uga socoto daaweyn ayuu wax badan ka tari doonaa oo saacidi doonaa. xarunta dhexe ee shahaado bixintana de waa ogtihiin oo dalkan waxaa la mideeyey guud ahaanba shahaadooyinkiisa insha Allah ayadana wax badan ayay ka tarin doontaa. xarunta weyn ee dhaxana waxaa ku shaqayn doona gebi ahaanba shaqaalaha ee wasaaradda qaybtooda degan dekeda. arrintan ayadan waxay wax badan ka saacidi doontaa guud ahaan. waxaad ogtihiin markii laga hadlaayo xanaanada xoolaha waa sektarka ugu muhiimsan ee dalkan dhaqaalaha inta badan aad uga shaqeeyo horeyna waa u sheegnay. waxaad ogtihiin sanadkii lasoo dhaafay waa markii ugu badneed xoolo Soomaaliya ay dhoofaan oo lacag dib ugu soo noqoto 1 bilyan lacag ka badan ay dalka dib ugu soo noqoto. insha Allah taala waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socdana intaasi in ka badan insha Allah taala guula in la gaaro. waxaan kala rajaynaynaa in xarumihii dhammaan wasaaraddu ay lahaydna dib loo dhiso sida maanta midaan aan u taaganahay oo aan xariga ka jarayno. ilaahay idinkii. Umar Maxamed, Hirshabelle TV, Muqdisho.